بسم الله الرحمن الرحيم waxaan aad u salaamayaa dadweynaha daawan doona video clipkan yar oo aynu kaga hadlayno waxyaaba waxaan ay dadku bulshada isticmaasho kusoo batay oo welibana ay samaynayaan dad Soomaali aha mida kale islaamna sheeganaya uma malaynaya in islaamnimadiisaasi qofka ka dhabtaya qofku markuu islaam yahay waxa weeyaan inuu iimaanku ka reebo waxyaaba badan oo uu ku dhici lahaa markaanu iimaan haysan iyadoo taas jirto waxaad arkaysaa maanta baryahan dambe waxaan bulshada caalamku isticmaalo waxa kusoo badanaya hablo intay iska soo duubaan video clip ka sheekeynaya isku tagga iyo waa la isu galmoodaa iyo sidana la sameeyaa iyo ninbaa sidan ka cabanaya iyo wixii aan kula talin lahaa baan uga sheegaya horta waxaa jirta markuu qofku yahay qof islaam ah ee uu leeyahay kelimatu laa ilaaha illa maxamed rasuulullah dee kelimatu laa ilaaha illa maxamed rasuulullah waxay leedahay shuruuday leedahay oo qofku waxyaabaha xumaanta way ka reebtaa wax wanaagsanna way fartaa marka qof islaam ah oo dee ka dhowrsoonaan lahaa waxyaabihii uu ku dhacayo dee xumaana yaa inuu maanta intuu halkaas soo fadhiisto weliba video iska duubo idhaahdo sidanaa la samaynayaa iyo ninbaa ii soo cawday inaan igu yidhi sidanaa igu dhacday deetana wixii laygala talin lahaa baan u baahanahay dee waa laga wanaagsanaa oo diiniyan dee wax bannaan maaha yaa horta waxaa kaloo jirtaa horta qof ay diintu qaban weydo anu ismali waxyaaba kala qabanaya inantaa islaamnimo waxa u dheer waa qof Soomaaliya oo inala midaba inala afa oo gabadha dee waxyaabo badan oo xishoodka dee ku hareeraysan waxay ahaayeen waxyaabihii qofka inuu xumaan ku dhaco ka qaban lahaa number 1 waa islaam number 2 waa qof Soomaaliya number 3 waa inanoo dee waxaad odhan lahayd baa qof falaagoobay waa nin baa dee waxyaabaha odhan karaya oo ku soo baxaya dee hadallada laga dhegeysan karaya mida kale waxaaba kaaga sii daranba uma eega qof khibrad u leh waxaanay ka sheekeynayso ay maanta halkaas soo gelisay haatan waxaan odhan lahaa dee qof marwaa hadday tahay waxaan dee aragtay haba ka sheekayso oo ha tiraahdo saas iyo saasaa jirta hadalna wuxuu leeyahay qofku markaad wax qof markaad dad u gudbinayso waxaa qurux badan hadallada waxaa jira dee hadalla asturan oo aad odhan kartaa adigoo aan ka tegayn dee odhahdaadii iyo mawduucii aad ku jirtay wixii inaad qurxiso yaa halkan ay leedahay waaba la iskaga ridayaa iyo waxbaa la isdabaynayaa inay haatan u isticmaashay dee hadallada aan dee turxaanta lahayn sidaa waa la isku tago dee ilaahay bay noo sameeyeen qofku dadku isku tagaan inagaa ku dhalanay weliba aan ku xoojiyay adaa ku haystee sax waxay ku khashifan tahay waxa weeyaan waxay ku leedahay gabadhii ayaa ii sheegtay in ninkeedii guskii uu ka jilcay balina ilaahay baa nagu dhaariye gabadha kule ninba guskii ka jilcay af Soomaaliga xagga la fadhiisanay bal mulodilaaca ka dhacay subxaanaka yaa cadiim waa wax laga xishoodo aad iyo aad wax aad looga xishoodo weeye okay waxaad naga daawanaysaa hadda YouTube channelka Warsamo Cusmaan daawasho wanaagsan noo subscribe gareeyo aad ciao bye bye